love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo Jack. si aad u fahamto sheekada Jack familigiisa aan ku baro. Jack familigiisa waxay ahaayeen hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalkiis. Jack dhibaatadii haysta waxay ahayd markasta aabihiis wuxuu garaaci jiray hooyadiis, weliba wuxuu garaaci jiray awoodtii ugu darneed uu awoodo. Jack iyo walaalkiisna kama celi karin sababtoo ah waxay ka cabsanayeen aabood. maalmaha ka mid ah Jack wuxuu isku dayay in uu aabihiis ka celiyo hooyadiis. kadib Jack wuxuu soo hor istaagay aabihiis wuxuuna ku dhahay maanta iska dhaaf aabba keliya. Jack waa la kala tuuray, aabihiisna aad ayuu u xanaaqay. kadib Jack walaalkiis wuu iska baxay. Jack wuu fahmi waayey sababta uu u baxay walaalkiis. Jack asigoo dhulka yaala ayaa aabihiis wuxuu kusoo tuuray dhalo, sidoo kalena wuxuu soo qaatay mindi wuxuuna isku dayay Jack inuu dilo. nasiib wanaag hooyadiis ayaa soo carartay oo gacanta u dhigtay. Jack wuu ilmeeyey aadna wuu u carooday sababtoo ah wuxuu arkay hooyadiis dhiiggeeda. kadib aabihiis aad ayuu u qeylinayay Jack. kadib waxaa lasoo gargaraacay albaabka. Jack aabihiis asigoo aad u caraysan ayuu albaabka furay. kadib wuxuu arkay Joker. Jack aabihiis Jokerkii ayuu wuxuu ku dhahay ka tag meeshan haddii kale waan ku dilayaa. Jokerkii laakiin wuu iska aamusnaa. kadib Jack aabihiis meeshii wuu ka soo tagay. markuu sii jeestay ayaa Jokerkii hal mar inuu gaaday ayuu burus madaxa ugu dhuftay. halkaasina waxaa ku dhintay Jack aabihiis, meeshii ayuuna ku dhiig baxay. Jokerkiina meeshii wuu ka dhaqaaqay weliba asigoo qoslaya. Jack arrinkaa markay dhicisay wuxuu ku jiray gudaha. xoogaa kadib markuu Jokerkii baxay waxaa imaaday booliis. booliiskii markay imaadeen waxay arkeen Jack aabihiis oo dhulka yaalo. kadib meeshii ayay baaritaan ku sameeyeen waxayna soo qabteen Jokerkii. Jack arrinka uu aad iyo aad ugu naxay wuxuu ahaa qofka Jokerka iska dhigaya oo aabihiis dilo wuxuuba ahaa walaalkiis. kadib booliiskii Jack walaalkiis ayay xireen waxaan u wadeen saldhigga. Jack walaalkiis markii saldhigga loo waday maanta oo dhan wuxuu ku celcelinayay way dhamaatay, waa uu dhameeyey, mar dambe dhib ma dhacayo. Jack maalinkaas laga bilaabay ilaa hadda markasta wuu kusoo qarwaa, arrinkaasna aad ayuu ugu fikiraa. Jackna si fudud ayuu ku waayay aabihiis iyo walaalkiis ka weynaa. fadlan ha hilmaamin inaad channelka subscribe saarto, videogana like saarto.